bulshada ku nool gobolka Mudug loogana hadlayay xoojinta nabadda gobolkaasi ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Faafahinta warkaasi waxa magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyaheena Axmed Jaamac Caano Cadeeye. kulankan looga hadlayay xoojinta nabadgelyada gobolka Mudug waxaa ka soo qayb galay nabadoono waxgarad aqoon-yahan ganacsato dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa nabadda gobolka Mudug oo haatan meel fiican maraysa. taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Saraakiil Cabduuli Jaamac Gorod oo garwadeen ka ah kulanka ayaa ka waramay sida ugu wanaagsan ee bulshada gobolka Mudug nabad waarta u wada heli lahayd. dad badan oo aan shaqoonin inaan isbaraan rabo dad badan oo aan awoodooda iyo tiradooda iyo tayadooda aan shaqoonin inaan isbaraan rabo waxa leeyahay talo waa ku yaa darga way soo yaqaaniin gabdhahan iyo kulli waa la shaqaan yus barahay ninkan oo warsan waxa isbarayaa waxa weey dadku waa nabadoon iyo nabadiid weey nabadoonada ma aha dadka nabadda doonayo dhan baa sheegaya nabadoon iyo nabadiid nabadoonku waa ka badan yahay nabadiidka soo beenta inta yar hada nabad rabo in badan oo ka soo tagnaa waa rabaa laakiin awoodooda ma yaqaaniin inay nabadda wada rabaan inay xoogooda mideeyaan ma awoodi karaan ma isku xiri karnaa in meel laga soo wada jeesto oo nabadda looga soo jeesto oo nabadiidka odayaasha madasha nabadeynta gobolka Mudug oo iyaguna kulanka ka hadlay ayaa sheegay in isku afgarteen kuna heshiiyeen in qofkii qof dilaa la dilo lana marsiiyo shariicada islaamka iyagoona xuseen afkaradkaasi la saxiixi doono 22 bishan oo ku aadan maalinta nabadda adduunka. waxaad ogaataan waxa lagu haraaday oo intaasoo kharash ku baxayo oo intaasoo dhibaato ku baxayso oo intaasoo shirc ku baxayo oo intaasoo maskax ku baxayso waxa lagu baabay waxa ku filan fulin baa ku filan qofka dambiga leh oo dambigiisa isaga lagu gaar yeelo baa ku filan maxaa 100 qof iyo 100 qof oo kale iyo qax iyo shida keenaya xeerkii waa noo qoray marka halkaas uu yaala hadda maanta inaan akhrinay ahayd waxyaabo yar oo irora baa ka dhimanaaday ilaa iyo inta soo noqonayaan gudoomiyaha guddiga iyo xuqaashiisu baa noo dhiman waa la saxiixayaa waxa laga yaabaa bishii inay dhimanaysay 5 3 4 7 inay dhibanayeen arinta marka annaga hore isku sheegnay haddana isku sheegayna nabadda marka lagu jiro oo la fiiriyo baaxadda nabaddarradu ay gaartay in dad badan dhibanayaan annaga dhan inaan garowsanno weey in qasaare kala duwan u dhacayo inaan garowsannaa waa inaan garowsanno weli dadkii inuu kala xayiran yahay oo uu isdhex gelin oo weli meelaha qaarkood ugaarsi u ka jiro. dhinaca kale qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo dhaweeyay nabadda oo garwadeenka ka yahay taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya haddana ah la taliyaha amniga ee madaxweynaha Soomaaliya waxa ayna tilmaameen in loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii loo heli lahaa nabad waarta. 9 bilood inay qaato ma ahayn maanta in xeer lahayn oo Berliin la ansixiyo xeerkaas waxay maalintii koowaad in la qoro guddiga shaqo badan bay qabteen laakiin waxa isla meelaha ka maqan wax kamid ahayd dadkii bisir ka faa'iideysan xeerna qod waxa weyn ma dadka halkaan fadhiya qofka u yar waa dugsiga weeye ilaa heer jaamacadeed waxay ahayd in aanu qorno naloo diro ku shaqeyno maantana qofka dambilaha baaxkii shabaqaas ku dhaco may noqon marka waxay noqotay in la xeer baaxka loo raasho hadda waa guul hadii la soo gaarsiyo xeerku muxuu noqon karaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa lam yahkum bi anzal Allah fa ulaika hum zalimun hum kafirun hum fasiqun dadka islaam weeye islaamkuna xeer baa loo dajiyay hadda anaga mid qorqorno hadhow waa soo qabsanayna qof magac u yeelaa xeerka loo daayay sharciga islaamka wax kale qofkii qora annaguna waa ku kala dhibanaynaa xal ma noqon doono xeerka loo daayay sharciga islaamka asaga qodob siinahay mid buu dilahay mid buu gacan ka jaray mid buu diya saaraya nabadaas gobolka Mudug socotana aad iyo aad baan u taageeraynaa haddaan haweenka nahayna waan taageeraynaa waana u jabanahay waana u dhibaataysanahay waana u liidanaa waxa maalin kasta farka bixinaya inta soo jeedaba islaam baa soo barbaarisay oo odagii uga tagay oo agoon ku soo korisay oo dhibaato kasta odaga markii habartu ka dhimato ilmuhu wasaka halaasan
tan iyo markii ay bilowdeen wadaxaajoodka ee isdhexgalka bulshada wada degta gobolka mudug ayaa waxaa yaraaday isdilka iyo dhaca xoolaha oo markii hore ahaa mid loo caalwaayey. axmed jaamac cilmi axmed caano wararka warbaahinta